qaatay inuu noqdo la taliyaha siyaasadeed ee ku qaybsanihii arrimaha Soomaaliya wakiilka u ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ahmed Wald Abdallah ayaa la oran jiray wuxuu ahaa Mauritania ninkaas oo la taliyo u noqday Maxamed Cabdirasaaq isagoo la shaqeynaya xafiiska jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan Soomaaliya ayuu door fariida ka qaatay isu soo dhaweyntii labadii garab ee kala fadhiyay Asmara iyo Djibouti ee baarlamankii Soomaaliya waxaana markii dambe ka dhashay baarlamankii wadaaga ahaa ee doortay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed 2009 waxaan ka shaqeynay waxa kamid ahaa shirkii Djibouti oo la isugu keenay dawladda kumeel gaarka ahayd iyo ARS oo taagneyd isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya halkaas oo aan shaqo badan oo ku soo qabanay isu keenida doorkii uu ku lahaa isu soo dhaweynta labadaas garab ayaa markii dambe 2010 waxaa ka dhalatay in loo magacaabo madaxa maxadka Mareykanka u qaabilsan dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga ee NDI isla 2010 waxa ii soo baxday shaqo kale oo ah inaan noqdo agaasimihii ama maareeyihii guud ee hay'adda la yiraahdo NDI halkaas oo aan muddo 4 sano ku dhow joogay oo aan tababarada baarlamaanka iyo sharci dejinta iyo dastuurka iyo wacyigelinta dadweynaha iyo arrimo noocaas